بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka sheegno wacdi iyo waano iyo warbixin yar oo kooban xanuunkan la yidhaahdo coronavirus ee hadda adduunka wareeriyey. waxaan rabaa marka 5 qodob inaan ka hadlo. qodobka koobaad wax yar oo warbixin ama hordhac yar oo xanuunkan ku saabsan. waxaan kaloo ka hadli doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo xanuunka dhakhaatiirta iyo dadka adduunka hadda jooga waan aragnay waxay sheegeen, maxaan ku dari karaa oon inta ahayn. qodobka saddexaad, dhimashada iyo noloshaba allah keena. qodobka afraad, xanuunka saan oo kale ah hadduu dhaco maxay dadka bini aadamka ah la gudboon inay sameeyaan. horta xanuunkan la yidhaha coronavirus maanta aan hadlayno waxaa la yidhi dad aad u badan baa u dhintay. 118,000 oo qof buu ilaa hadda ku dhacay sida warbixinada ugu dambeeyay ay sheegayaan. ilaa 4,000 oo qofna waa u dhinteen. waa sida ofishaalka ee la faafiyey. xanuunkani saad ogtihiin bishii 12 sanadkii 2019 ayuu wuxuu ka soo bilowday wadanka Shiinaha buu ka soo bilowday. wuuna faafay hadda saad u jeedaan. hadda maantadan aan idinla hadlayo magaalooyin badan oo Mareykan ka mid ah ayuu ku faafay, oo ay ka mid tahay Seattle, Washington, magaaladan hadda joogno Minneapolis ama Minnesota state-ka. ilaa hadda waxaa laga helay 5 qof baa laga helay. ilaa maanta jaamacadda ugu weyneed Minnesota ay galaasyadii fasaxday oo la online ma ahana lama imaan karo. xanuun yar oo maanta la leeyahay indhuhu ma arki karaan, oo xubnaha unugyada bini aadamka iyo dhiigga qaadaya ayaa wuxuu gaarayaa qofka inuu dilo oo aan la garanayninna sababka keenaya ilaa hadda aad ogtihiin. waxaan dhihi lahaa marka inaan ku baraarugno awoodda ilaahay ee rabbaaniga ah inta ay la eg tahay marka loo fiiriyo awoodda bini aadamka. masalada labaad oo aan rabo inaan idinla wadaago waxaa weeye markay masaa'ibtan oo kala dhacaan allah tabaaraka wa tacaala waxaa la rabaa oo uu nagu baraarujinayaa oo la rabaa inaan fahanno in addoommada la rabo inay alla u laabtaan tabaaraka wa tacaala oo ay ka laabtaan waxyaabaha ay ku jiraan. allah wuxuu leeyahay wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayadaha waxaan u soo diraa iyo mucjisooyinka awooddeenna tusaya inaan dadka ku cabsi gelinno oo ay ku waana qaataan. masalada kale oo u baahan inaan fahanno waxaa weeye alle ayaa abuura dhimashada iyo noloshaba. alla wuxuu leeyahay tabaaraka aladii biyadihi almulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. marka haddaan nahay muslimiin haddaan nahay waxaa la rabaa inaan ku baraarugno oon fahanno geerida iyo noloshaba allah abuuray. qof aan alla u qorin ma dhinto, qof aan alla u qorinna ma noolaado. bini aadamka dhanna waxaa la rabaa masalada inay fahmaan. masalada kale oo loo baahan yahay inaan fahanno waxaa weeye waxyaabaha cudurrada waaweyn ee saan oo kale ah markay adduunka ka dhacayaan sababka ugu weyn oo keena waa bini aadamka ficilkiisa iyo dunuubtiisa natiijo ka dhalatay. maanta waxaa adduunka jiro dulmi iyo xadgudub iyo kufsad iyo zino iyo liwaad iyo xaaraan iyo ribo iyo dad masaakiin oo la gumaysanayo oo lagu dilayo kelimada tawxiidka ku dhawaaqeen. natiijadeedu waxay noqonaysaa sidii allah uu sheegay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد كيبا كظاهري أدونك برقة يبدوا dadku waxay kasbadeen weeye. allihii dadka abuuray baa dhahaya alla qof mid ka aqoon badanna ma jiro.
mid alla ka aqoon badan oo bini aadam ah oo qof bini aadam ah ma jiro. allihii abuuray baa saas dhahaya. ilaahayna dadka wuxuu ugu talagalay inay kuwaana qaataan waxyaabahan oo kale u laabtaan. mas'alada kale oo aan rabo inaan ishaaro waxa weeye daacuunka iyo xanuunada saan oo kale ah ee awoodda bini aadamka ka baxsan, dhinac waa ciqaab iyo canaan alla uu ku canaananayo oo uu ku ciqaabayo dadka xadgudubka iyo dulmiga iyo dembiga iyo macsiyada ku jira. dhinacna waa raxmad iyo naxariis qofkii ku dhinta asagoo sabraya oo og inuu ilaahay yahay midka wax dilo waxna nooleeya oo sabab uu u noqdo cudurkanina suu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa shahiid waana ahlu janno. caaisha radiyallahu anha ayaa nabiga waxay weydiisay sida imaam bukhari ku sugan, rasuulka ilaahay waxay tahay sa'altu nabiga sallallahu alayhi wasallam can taacuun, nabigan taacuunka weydiiyey. taacuunku waa calool shubanka, waa xanuunada saan oo kale ah oo aan la garanaynin waxay yihiin oo qofka intuu ku dhaco oo uu shubmo oo uu miirmo uu dhimanayo. fa akhbaraha annahu cadaabun, wuxuu sheegay inuu yahay cadaab ilaahay uu ku soo diro qofku rabo. wuxuu kaloo sheegay ilaahay inuu ka dhigay naxariis. markaasuu nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qof ma jiro daacuunku uu ku dhacay oo haddana sabray oo ajir raadsaday oo og waxa ku dhacay uun inay yihiin wax alla u qoray ilaa wuxuu leeyahay ajir qof shahiid oo kale. wuxuu kaloo nebigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiid kale oo imaamu nasaa'i axmed iyo ay wariyeen keyrkood, abu hurayra xadiidkiisii, maa tacuduuna shahiida fiikum, maxaad ku tirisaan, maxaad u taqaanaan qofka shahiidka ah, sidaad u xisaabisaan. waxay dhaheen rasuulka ilaahay waa midka ku dhintay dagaalka ku dhintay. waxay dhaheen waxaan u naqaanaa man qutila fii sabiilillah, qofka jidka ilaahay lagu dilay fa huwa shahiid. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam haddaba dadka shuhadada ah ummadayda way yar yihiin. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxay dhaheen yaa weeye. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midka jidka ilaahay lagu dilay waa shahiid, midka asagoo jidka ilaahay ku sugan dhintay oo ku socda waa shahiid, midka daacuunku dilay ee u dhintay waa shahiid, midka u dhintay calool xanuunka waa shahiid. calool xanuunka waxaa soo gelaya wax kasta oo cudur ah oo qarsoon oo uurjirka qofka ku dhaca, ama ha noqdo kansar, ama ha noqdo daacuun, ama ha noqdo shuban kale, ama ha noqdo keliyo, ama ha noqdo beer, ama ha noqdo wax gudaha qofka ku dhaca, ama ha noqdo coronaviruska hadda aad u jeedaan oo kale. wax kasta oo qofka uu ku jirtiisa intuu ku dhaco qofka bini aadamka si degdega ku dila waa shahiid buu nabiga sallallahu alayhi wasallam, qofkaas waa ahlu janno. waxaan halkaas ka aragnay in qofka ku dhintay asagoo sabraya oo alla yaqaana uu yahay qof shahiid oo ajir leh oo jannada galaya. sababta waa awood ka baxsan weeye oo bani aadanimada ka weyn. mas'alada kale oo rabo maanta inaan ka hadlo waana mas'alada muhiimka ah. haddii magaalada aan joogno ilaahay ma nagu keeno bilaadeenna iyo dhulkeenna iyo magaalooyinka aan deganahay iyo guryaheenna iyo awlaadeenna iyo ehelkeenna iyo mujtamaceennana allaha nabadgeliye, hadduu ku dhaco xanuunkani maxaa nala gudboon inaan samayno oo aan ku tallaabsan karaa. waxaan halkan idinku diyaariyey sidaad arki doontaan insha allahu tacaala waraaq ama flyer ka hadlaysa, waa broshuur ka hadlaya steebyada la marayo oo qofka la rabo inuu ku dadaalo oo dhan, waana la daabici doonaa insha allahu tacaala mar dhow isagoo koobi ah yuu heli doonaa qof walba oo awood u leh inuu helo. waxaana la gudboon marka koobaad, haddii xanuunkani uu ku dhaco meel aan joogno, in aan ogaano awoodda ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo qofkii alle uu huwiyo daryeelkiisa iyo naxariistiisa qof kala hoos bixi kara iyo cudur kala hoos bixi kara inuusan midna jirin. sidii nabiga saalixa oo nabi ilaahi yacquub uu yiri fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin. allah asagaa mid wax xifdiya ugu khayr badan oo ugu wanaagsan, asagaana mid kastoo naxariista ka wanaagsan. inaan marka qalbiga ku qabowsanno oo qalbiga aan ku dejisanno oo aan ku sheekaysanno oo aan dadkeena ka dhaadhicinno fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin. inaan ogaano qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba lahu lana, wixii ilaahay noo qoray maahna wax kale inay nagu dhacaynin, oo aan ku kalsoonaano oo niyadeennu ay ku degto oo qanaaco ay ku qaado oo qalbigeennu uu dego. midda saddexaad,
waa mid aan bini aadamkana ula simannahay la rabana inaan inagu uga horeyno oon kaga dadaal badnaano oo ah asbaabta iyo sababaha bini aadamku maanta uu gaaray ee dhakhaatiirtu ay ku naseexeeyeen waa inaan qaadano wax kaste oo dhakhaatiirtu maanta ay ku naseexaynayaan iyo dadka caafimaadka ku takhasusay oo xanuunkan aan kaga fogaan karo oo aan isku daryeeli karo oo aan faafitaankiisa ku yarayn karana waa inaan qaadano oo dadkeena aan ugu naseexayno oo jaaliyadeenna aan ku dhex faafino oo masaajideenna aan ku dhex faafino oo guryaheena aan ku dhex faafino oo dadkeena aan ku baraarujino oo aan ku wacyigelino mas'alada kale oo ay inagoo middaa dadka ula siman uu qofka muslimku dadka kale la dheer yahay waxaa la rabaa in aan caruurteenna iyo inaga nafteenna iyo guryaheenna iyo ehelkeenna aan ku xifdino oo aan ku ilaalino adkaarta ducooyinka qur'aan akhriska waxyaabaha khaasatan daliiladu ku soo arooreen oo la yidhi qofkii saa sameeya waa la ilaaliyaa qofkii saa sameeya musiiba kuma dhacdo waxaan maanta idiin sheegayaa ilaa dhowr aayadood oo qur'aan ah iyo dhowr duco oo biidni illaahi tacaala qofkii akhrista balaayo oo dhan iyo musiibo oo dhan alla uu ka xijaabayo sida axaadiistaas iyo aayadahaasi nusuus cadcad ay sheegayso waxaa ka mid ah subixii iyo galabkii inaan akhrisanno aayad kursida qul huwa allaahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas waa magangelyooyin qofkana way ilaalisaa 3 mar subixii iyo 3 mar galabkii inaan akhrisanno oo awlaadeenna aanu akhrino waxaa kaloo ka mid a nabiga sala allahu alay wasalam xadiid imaam muslim uu wariyey ayuu wuxuu leeyahay qofkii meel dega bal ducadan u fiirsada qofkii meel dega oo yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq waxaan ka magan galay kelimadaha alle ee dhammayska tiran wuxuu abuuray sharteeda wax kasta oo shar leh jinni insi gaal muslim cadow saaxiib shisheeye ehel cudur wax kasta oo dhib leh coronavirus xanuun kale oo dhaca aidis maxaan la yidhahdaa TB bahashii maxaan ku dhahaa kansar wax kasta oo shar leh shartiisa baan alla ka magan galay waa cajiib ay ducadaas waxaa kaloo nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam xadiid abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkii ay wariyeen nabigu inuu yihi sala allahu alay wasalam qofkii dhahaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi الsamaa wa huwa asamiicu alcaliim qofkii dhahaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi الsamaa wa huwa asamiicu alcaliim qofkii 3 jeer dhaha markuu galabaysto galabkii musiiba kuma dhacdo ilaa uu ka waabaristo qofkii subixii dhahana 3 mar ilaa uu ka galabaysto musiiba kuma dhacdo waa cajiib ay ducadaas aanu fiirsanno aan caruurteenna ku akhrino aan inagu akhrisanno bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi الsamaa wa huwa asamiicu alcaliim waxaan kaloo ducada ugu dambaystoon idin xasuusinaya waxaa weeye nabiga sal allah alay slam xadiid abu daawuud iyo keyrka ay wariyeen buu wuxuu leeyahay allaahuma inii acuudu bika min albaras wاljunuun wاljudaam wa min sayi'i اlasqaam ilaahayow waxaan kaa magan galay baraska iyo waalida iyo juudaanka iyo cudurada xunxun oo dhan cudur kasta oo xun ilaahay ka magan gal ducadaana akhriso walaalle walaalka muslimka iyo walaasha muslimka ahay aan akhrisanno subixi iyo galabkiiba markaan ugu yaraano adkaarta subaxa iyo adkaarta galabka iyo adkaarta hurdada lagu seexdo iyo midda guriga looga baxo markaan akhrisanno si khaasa aan u ogaano aayadahaas aan idiin sheegay iyo axaadiistan aan idiin sheegay haddaad awoodid subax alla keena inaad sadaqa baxsato qof sadaqa baxsada musiiba kuma dhacdo ku dadaal waxaan ku soo gabagabaynayaa mawduucan inaan dadkeenna u samayno baraarujin iyo wacyigelin ah xanuunkan in qofku
uu isku ilaaliyo si uusa xanuunkaasi ugu dhicin adkaarta ilaahay iyo kalsoonida alle iyo magangelyada alle markaa kadibna uu qaata asbaabta bini aadamka ilaahay u sahlay ee fadliga ilaahay uu ilaahay fahansiiyey maanta bini aadamka oo dadka kale aan ula sinaano waxaan markaa rajaynayaa inaan laba kaadh wadanno mid aan dadka ula simannahay iyo mid aan khaas la nahay oo iimaankeena iyo islaamnimadeedu ay nagu hanuunisay baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ilaahay waxaan ka baryaa inuu na xifdiyo innaga oo dhan iyo awlaadeenna iyo ehelkeenna iyo guryaheenna iyo beledyada aan degannahay iyo maraakisteenna iyo meel kastoo aan joognaba ilaahay inuu nagu ammaansado oo ilaahay uu balaayada oo dhan na gees mariyo baan ilaahay ka baryayaa baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh